ra-iisul wasaaraha xukuumadda ku-meel gaarka Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ay weheliyeen qaar ka mid ah golihiisa wasiirada gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe iyo ku-xigeenadiisa taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed iyo saraakiil kale galinkii dambe ee maanta booqday deegaanada cusub ee lagala wareegay xarakada Al-Shabaab ayaa soo kormeeray qayb ka mid ah fariisimaha ay ciidamada dawladdu ka sameysteen deegaanadaasi iyo goobaha caanka ay ku tahay degmada Balcad. ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي يا أخي أدنى حولي ظلام حالك فأنر دربي وبدل ظلمتي نورك نورك فجر طالع منه أبصرت طريق الجنة يا أخي أنت بعد الله من أفضله يا أخي ما بقلبي من نسن أو لوعتي في كلا الحالين ألقاك معي حاضرا في وحشتي أو فرحتي كل من حولي سراب خادع يدعي حبي وصدق مودتي إن صفات عيشي فما كثرهم عجبا أين هم في شدتي يا أخي أنت لا غيرك من دون الورى مخلص لي يا أخي في صحبتي لست ترجو من ودادي غاية رفقة في الله نعم الرفقة وجهك الوضاء ألفيت به كل معنى للعلا والرفعة مد لي يمناك كي نمضي معا في طريق النور درب العزة إن دهتني في حياتي كربات كنت لي عونا يجلي كربتي الضعف يوما جئتني تعتني ضعفي وتذكي همتي يا يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي يا أخي
TFG أبانا TFG أبانا TFG أبانا TFG halkaasi oo ay ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisu ku soo dhaweeyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo waliba ganacsatadii goobta ku sugnayd ra'iisul wasaare Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo kormeerkiisa kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay hawlgalladan ciidamada dawladda ku meel gaarka iyo kuwa AMISOM ay kula wareegeen inta badan gobolka Shabeellaha Dhexe isagoo sidoo kalena ra'iisul wasaaruhu sheegay inay sii socon doonaan dagaalada ay kula jiraan xarakada Al-Shabaab tan iyo inta dawladda ku meel gaarka ay la wareegaysa gacan ku haynta guud ahaanba gobolada dalka Soomaaliya شرف سكرة بعد صحافة بعد السلام يا سلام ورحمة الله وبركاته يا سيد الجمهورية اللي في حد بين نقطة مانتا لا بعيد ودنا باشا عن كل عيدنا وعيدك هذا وعيدي ما أنت أهرسي على الصومالية لقتها وجيجا الصومالية ولا حلوة تنكجون وما أنت حرم القاتل قرده وقوية الصومالية وحامرك في حلة بعد نوعه إن ما أنت تجمد البلعة حرتها إلى بحر هي نمك شر ولا ياشها دبت وجيس الصومالية دبت لكوها هي nabadgelyo xumada iyo duligana ku haya dadkan gobolka ku nool inay maanta laga xoreeyay maanta waxa iska leh sida gudoomiyuhu sheegay ciidamada qalabka sida iyo walaalaha AMISOM horantu soo sheegay dadaal dheeraad ah geesnimo muujiyay wadaninimo iyo marka ciidamada qalabka sida iraahdo Soomaalinimo wanaagsan iyagoo waliba aan ognahay sida uu sheegay in ku adeegayeen kuna dagaalamayeen duruufo aad u adag مرحلة أدوات نكون أدية لكن هذا أيسن وحلا أيسن عقبات كنا غني مرة أيديان وها ينضل كويد كودنا وأدية سيد المية قال لوري يقول مركب هذا يجا إسكاله معنا مركب أنا أقول بشارية هذا واحد جملة واحد ويفرد بعض نقدم بيسه مركب أنا أقول مركب قدام بيسه كل إسكال موسيقى يسد حدي أنا مين أنا أقول مركز جامعة الصومالية كذا الجمالية تسيجا كفر جامعة شافعي طلع كفر هذا جانا بويا كسور شيء شغالة يعني تجانا هل بلي حوضا مركة أنا كفر حسنا مر لبعض صدق دوسنا كبعد أنا توصل لعبت أركو ما أنت يضع حرة هين باني وضع توصل لعبتي يضع حرة لما أنت أركو أفرحت بين نور مركة دودو أنا سؤال شيء جيا كنتي وسود وده الدولة النوادي نبتها هي وأنا كبحين كبرجان نوادي عن الدولة تعمل والله هي sida lagu yaqaanayna Soomaaliya meesha ay joogto laga qaadan lahaa meesha istaasho in la geeyo ay tahay marka waxaan taas ku gaari karaa wadajirkeena midnimadeena waxaan rajaynayaa 20 jul sanad soo socda Soomaaliya meel walba xora Soomaaliya oo dawlad taama yeelatay Soomaaliya oo u gudubtay ka gudubtay marxalad aad u wanaagsan waxaan jeclaan lahaa inaan ku bogaadiyo mar walba aan ku gubaabiyo shacabka in garab istaagan ciidamadooda taakuleeyaan garab istaagaan taas ayaan marka ay iyana niyadooda ku dhismaysa anaguna aan awoodayna marka inaan ku xorlo dalka intiisa kale aan idin sheegayaa oo August 20 intaan la gaarin waxaan rajaynayaa Soomaaliya oo dhan in cadawga lagu xoreeyo lana xasiliyo maamul loo sameeyo dawladda meena ay ka dhalatay deelaha yiraahdo salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh halkan waa buundada degmada Balcad oo sida in muqaddimada daawaqiya lagu maro wadiga Shabeelle sidoo kale wadiga Shabeelle hareerihiisa waxaa ka baxay qudaarta noocyadeeda kala duwan oo ay ku yihiin moos, banaanka iyo weliba qaybaha kale ee qudaarta ka soo baxda gudaha dalkeena Soomaaliya